ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنت بس حاب تقالك كحران كنال كيقول لك شو صور هذا صاحبي المال بدون تفيدي تعال ذي دبا يقدر ونسي فرضاً كنا كتطلق عصب تاعي سبسكرايب تلايك تشارك كومنت أنت وصاحبي يعني نصارى أديت بما سنتين واحد دونينا كهضلو فنان كيني ملكني يرى الفنان إسماعيل دنان أحرن مدئمك سمد يبرد كسيدو حتى بها فنانين بدن أيها شيكتين قرب تاجين أم بعاوين أم بوحقبتين أم بتوتو وحياة بدن شاقي إمك وحلا ورئيسنا أم بوحد ليس إسماعيل دنا ولا شيء بل أين دقيسنا وحيت هذا إلهنا وحن كبر يا قعنت عذوك إنه كصوف وكسر تايو فنان قيمة بدن بوها فنان لتشعري بوها فنان شعلنا بوها فنان أنا كشخصي هانت حتى وقت أن صوت قاضنه وقتي أن هدي تقرأ أن بدأ توينك عيار الجري فنان كاس أن وحن كله وقتي بدن صوت قاضنا بوها فنان ولا ليلة هي هم بوها وحن إلهي كبرياء إسماعيل دنان تقول رخصيها بدن له وصف فرو كعنتها عذوك إن شاء الله بإذن الله كلام إسماعيل محمد برخد إسماعيل دنان إن حوشيسو ما حميدي مكبلابنتي waxay socotaa muddo sanad iyo 3 bilood hase yeeshee hees imika u qaaday Mukhtar Daawus ayaa waxay noqotay mid gilgishay dhammaan qulubta ummadda Soomaaliyeed soona kicisay in hawsha imika taagan baraha bulshada qof walba halku doonay uu rabo inuu ka galo dad waxad moodaa in ay kicisay Soomaalinimadu oo ay iyagu rabaan inay arinta Ismaaciil ka gungaaraan dadna waxad moodaa inuu hunguri u galay oo baraha bulshada noloshoodiiba ay ku xiran tahay oo qolada YouTuberada iyo cidda TikTokerada iyo waxaas isticmaala dadna waa dad damiirkoodii u adkeysan waayay oo Soomaalinimo ugu adkeysan waayay arinta Ismaaciil ee soo jiidantay sanad iyo 3 bilood socota haddaba Ismaaciil Maxamed Barkhad Ismaaciil Danan waa fanaan kiini waa fanaan Soomaaliyeed wuxuu ku sugnaa muddo 8 sano ah wadanka Sweden after 8 sano kadib Ismaaciil wuxuu u hayaamay wadanka Mareykanka isagoo markaa ahaan ka raadsanaya sharci bacdamaaba uu 8 sanadood ee uu joogay dalka Sweden una wax sharci lahayn Mareykanka markuu galay غيركيبي وحلا قبي وحو كغدبي دلك مكسيكو جانس باي هيد marka ahaan soo baxay Soomaali oo dhan qof walba oo meel ku cadilnaana uu isku dayay inuu ka faa'iideysto jaaniska Ismaaciil markuu tagay wadanka Mareykanka uu ka gudbay xuduudii Mexico waxa qabatay ilaalada Mareykanka xuduudaha kadib waxa lagu xiray gobol la yiraahdo Luciano after 3 days marka ay dadku ku jiraan goobta ay ku xidhan yihiin immigrationka waxay wacdaan qof walba addresska uu haysto iyo qofka uu rabo inuu ku dago dan Ismaaciil hawshiisu waxay ka bilaabantay inuu addresska dadkii uu ku ahaa ay iyagu cadaadiyaan oo ay halkaas soo gaarsiiyaan oo ay telefoonadii iyo waxyaabihii uu kula xidhiidhayay oo dhan ay ka qaban waayaan taasi waxay sababtay Ismaaciil halka imika uu taagan yahay inuu joogo hase yeeshee annagu waxaan u aragnaa qadarka Ilaahay hawshan inay ku socoto wixii Ilaahay keenana mar leebaba lagama gudbi karo Ilaahay hawsha dhameystiran mooyaan markaa bahda warbaahintu waxa igu soo booqateen ina ogaataan in xogta dhabta ah Ismaaciil Danan bacdamaaba dadka Soomaalidu qof walba dhinac ula kacay hawshii labuun baan u kala qaaday anigu markaan arkay social media labadaan u kala qaaday waxa weeyaan inay dad yihiin dad hungurigoogiiba u galay inuu faaleeyo arinta Ismaaciil dadna waxaan u qaaday dad igu sawir leeyahay iyagoo aan xog bahayn oo Ismaaciil arintiisaba aan hayn iskaga soo dhaxdacayo oo ummadda Soomaaliyeed isku tusaya si ay u sheegaan xog aan jirin Ismaaciil la iskaga dhigan dad warwahay 24 saac ugu dambeeyay ayaana maadaama fanaankan aad walaatihiin waxa jira fanaaniin ka soo jeeda magaalada Boorama oo ku nool dalka Mareykanka fanaaniintaasi ma u tageen Ismaaciil
maxaa mid nila soo xiriiray idinka qoys ahaan maadaama fanaaniintaasi ay ka soo jeedaan magaalada Boorama عمران وأد بدو ما تنتهي ولا ويترى فنانين لا هيبة أما قبل كسوتشي ده دجن وطن كمريكان كا حسية شيء متشرو قف أنا جنا لصو حريري مستشرو قف يعني أوران كروا فنان وأرنت إسماعيل بوميل كجلي ما جرنايو وبحان كأهين إن السوشيال ميديا هكاركو يجو كجوابية حتى عدد كجعنتكو هيا هوش إسماعيل مركن ويديو إيما شجعان إني حتى حدد لليه تسمع الفنان بوها فنان انترناشنال وها وحوها موسيشن وحوها إنا يرقد اللي يرى أو فنكيسة قرأوا قاضي يسقوا عنه إذا طبعا واحد أرجنا يتد بدن وكهر ضيا إني كعن قبتين أم بقى يجرب تاجيه فنان إسماعيل دنان إسقوا كم تاي فنانات هذا عبد الرحمن صفي اسمه فنانين بدن أورير بورمه وشاقي إني جرب تاجيين أم بقى يعني هوشة كتران ولا شيء نيمكو واحد قرانة سام بواحد شيء إسا جبي أهم فنانين دا إسقوا قبل كيهين وح عاومة أم بواحد جرب استاجي إنه يسون كهيسن ويلكاس إسماعيل دنان أديات بوم هاي هدي أي شيء كذا إسماعيل دنان يوصور نقطنا رانتي وشكل ليابله وشكل ليابله dad badan waan arkay safiitus man arkay hodan Cabdiraxmaan muddo badan arinka ka hadlaysay waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunweynaha ay kaga sugan yihiin inay garab istaagaan oo walibana ay si xoog ah ay u garab istaagaan wiilka Ismaaciil Tan wala dayacay Ismaaciil Tan dadku ku tashanayay maanta halka dhigay Ismaaciil Tan waa looga baxay Ismaaciil Tan maanta qof dadkii uu sheegtay driiskooga ayaa halkan gaarsiiyay ayaa halka dhigay uga dhacay waxba u qaban waayay ugu talagalay inuu jeelka inta ku jiro ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahu wuxuu qaban karay aadama wuxuu qaban karay haba yaraatee ma jirto ilaahu ba awood leh ilaahu ba adduunka wax ka bedeli kara ilaahu ba wax ku leeyahay tala saaratid wax walba isaga daraadeed ku heli karaysa ilaahay dartii waxaan idam alle inuu ninkaas soo baxo inuu ninkaas xorriyadiisa helo inuu asaga ugu sareeyo inuu hadaf walba ka leeyahay noloshiisa iyo mustaqbalkiisa inuu ilaahay ku guuleeyo ay ilaahay uga baryayaa idinku saaxiibayaal u duceeya waa wiil dhalinyaro waa wiil hadda soo kacaya waa wiil waxaan kula mustaqbal u baahan waa wiil inaga garabkeena u baahan haddaynu halkan cidun ka hadalhayno oo dadka dhiban ugu hiilin weyno wallahi way kadeen marka waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed inay ugu hiilin doonaan kuna garab istaagi doonaan Ismaaciil Danan hiil iyo hooba insha Allah billahi karim ilaahay farsh qeyb qaba ha ku furaan adiga iyo familkaaga iyo inta dhibaataysan ee kula midka adiga aad u maasantii